laba hablood oo xalay social media la wada arkayay oo iscaayay waxaan leenahay toobadkeeno Ilaahay ka cabsooda waxay ku hadlayeen wax laga qajilo waxna waa laga qaban doonaa ashkatadooda iyo hadalkooda maanta aad buu noogu badnaa ehelka iyo qaraabada oo ay rag ana waxaan leenahay dumar kasta oo hadlaya war maana cid la dhalan oo inagala joogan warbaahinteeni gaar ahaan bulsha TV agaasima qadar macallin oo runtii gudida wanaag farista mar walba ag taagan khayrka iyo baahintana nala garab taagan telefishinada kalena waxaanu leenahay war wax badan baa ka shaqaysaane diinta ku soo dhawaada oo sida TV-ga bulsho wanaaga iyo khayrka nagala shaqeeya qolada dawladda ee howlkan iyaguna nagu karaameeyay oo howlkan uu yahay hanti qaran isla markaana shaqadan maanta ka socotaatay shaqadii ugu mudnayd oo ah in diinta ummadda loogu baahiyo iyaguna aad bay u mahadsan yihiin dadka social media sida xun u adeegsadana waxaan leenahay toobadkeena laba hablood oo xalay social media la wada arkayay oo iscaayay waxaan leenahay toobadkeeno Ilaahay ka cabsooda waxay ku hadlayeen wax laga qajilo dadka ehelka iyo qaraabada oo ay rag ana waxaan leenahay dumar kasta oo hadlaya war maana cid la dhalan war maana cid dhalin war dadkii ehelka oo hakay ku maqayn waxaan leenahay ninka ehelkiisa iyo waxa weeyaan caarkiis aan xumaanta uga raali noqda tayuus baa la shariicada islaamka kuwaana waxaanu leenahay haddii dee aqligu shaqayn waayo xukuumad iyo baawar baa jira insha Allah taala waxna waa laga qaban doonaa ashkatadooda iyo hadalkooda maanta aad buu noogu badnaa iyo taleefanka war maxaa dhacay dadkii wanaaga ka shaqayn jiray maye waxan waxa weeyaan ka socda media waa maxay baan la lahaa iyagana waxaan leenahay toobadkeeno oo dadnimadii u noqda sidaa ku jirtaan marka wax kasta la qiimeeyo dadnimo la'aan weeye runtii aad baad u mahadsantihiin ducadeennu ku soo dhawaanaynaa